السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله دابنا يا مل والبدون كتجوكتان إيجا قدوما سلام قالية سلام كتمت ولا الإله درتي سيدين جعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدبدو ما تسنتهين داوشدا الداونيسان ما أنت وحان جعل يستي إن إذن لو ذاقو آية كمت آيذوين كإلهي سبحانه وتعالى aayada ugu dambaysa ee lagu soo dejiyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam aayada ugu dambaysa ee ka timid samada aayada ugu dambaysa ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ee la soo dejiyay lagu soo dejiyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam aayadaas waxaad u moodaaba inay tahay dardaaran oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka oo dhan quraankaas nuur ah quraankaas qof walba oo raaca hanuunaya wadada farxadda iyo jannada quraanka oo dhan ilaahay markuu sheegay aayadan ayuu ugu soo gabagabeeyay waxaad u moodaaba in aayadan ay tahay dardaaran ku socota qof walba oo mu'min ah qof walba rabbigiisa jecel إلهي وحوليه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الله أكبر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كبقى أو كعب صدم أو كفكرة أو اسكت ديارية مالين أطلابا دونتان إلهي سبحانه وتعالى مالين أتهورستاغي دونتان إلهي سبحانه وتعالى مالين تاس اسكت ديارية مالين تاس يعني maalintaas u shaqaysta maalintaas noqda kuwa ka fakara maalintaas noqda yani kuwa ka cabsada maalintaas isku diyaariya buu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay hadaba waxaan leeyahay midka salaada dayacaya midka salaada ka tagaya waxaan leeyahay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kabaq maalin aad u laaban doonto keligaaga aad hor istaagi doonto aad la kulmi doontid waxa aad adduunkan kasbatay waxa adduunkan aad sameyn jirtay buugaas keligaaga aad aqid doontid lagu leeyahay iqra kitaabak keligaaga aqri baa lagu leeyahay kafa nafsadaada ayaa xisaab kuugu filan adiga ayaa aqinaya maalintaas inaan ka baqno maalintaas inuu qofka isku diyaariyo maalintaas inuu qofka ka xishoodo qof walba waalidiintiisa caasinaya oo aanan ateeceenin oo caasi waalideyn ah waxaan leeyahay ka baq maalin aad hor istaagi doonto ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba xumaanta ku dhex jiro qof walba zinada ku dhex jiro waxaan leeyahay ka baq maalin aad hor istaagi doonto ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la yiraahdaa waxay tahay adduunkan oo dhan aad u jeedid waa in aysan ku ilowsiinin aakhiro عجيب يعني نولشن أدون أتنوشاي أو دن وحول بسمي ساربتد أنولو لكن يسن كو إلوسينين هانا كو حد قدبين وحا إله سبحانه وتعالى أو حرم تنميم قفك وحالو باهيا قفك عاقلك وحيتهي قفك أدون كان يعني قفك أدون كان سيف عن أشقيس أو سيف عن أنه لا آخرا آن إلوبين قف كستداس أيلو باهيا مؤمن كدبتة إنه النقل قف كيف كان نلاشن كذب صوبته مستقبل كدبتة ما أهان طبعا سنة كذب مالك ربتد كسبه وحربتد يعني هذا برتد أدونك أو دن نسكي سادات أديك أتلاذا هاي أو إتاس غاري أتلاذا هاي إتاس غوري أتلاذا هاي مالين أيا إيمان دونتو سكن أيات إيمان دونتو أدونك أتكتجيسد dadku waxay dhigi doonaan wuu dhintay way isku dhamaatay maalkaaga ku raaci maayo qof ku raacay mal qof wax ku tari kara malahan keligaaga u baad galaysaa in meeshaas qabriga oo meeshaas ciriiriga mugdiga badan oo qofna ku joogin keligaaga ayaad galaysaa xisaabtan marka isweydii maxaan kasbaday maxaan sameeyay miyaan isku diyaariyay maalintaas aakhiro waa maalin ilaahay uu leeyahay maal awlaad waxba tari maayo wax walba wax ku tari maayo إلا قفك لي ما معنا عمل ونكسن أن كود ذلنا إن أنت هذا أن الله حالدا هذا أن كسوجنا سكن كان هذا كسوجنا إنه قفك ذل ذكر الله سبحانه وتعالى صلاة إنه صنطيع حمانة إنه كفوا هذا يوحي لمتأه
aan ku celiyo aayadda ilaahay uu leeyahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah. aayaddaas ha iloobin. haddii keligaaga aad noqotid, albaabka aad soo xiratid mugdi ay noqoto, qofna aanan kuu jeedin, ogow wattaquu, ka baq maalintaas aad hor istaagi doontid rabbigaaga. keligaaga haddaad lacag a aragtid oo xaaraan ah aad qaadan kartid, aad awoodid inaad qaadatid, ka baq maalin aad hor istaagi doonto ilaahay subxaanahu watacaala adigoo qaawan. rabbigaaga aad la hadlaysaa, lacag walba aad kasbatay, wakhtigaaga meesha aad ku dhumisay, kulli waa lagu weydiin doonaa. maalintaas ka baq, maalintaas aad ka fakerna. haddii salaada oo shaytaanka wahsi yar aad dareentid, xumaanta adigoo dhagaysanaya, ka faker aayaddan oo ilaahay uu leeyahay wattaquu, ka baq maalin aad hor istaagi doonto rabbiga wax walba ku siiyey. idaa maa qaala lii rabbi ama istaxyayta tacsiimni, hadduu rabbiga ku weydi maalinta qeyb miyaadan ka xishoonay addoonkeygiyo anigoo intaas nicma aan ku siiya, haddana adigoo caasinaya, anigoo wax walba awooda. ka faker haddaba xumaanta, marka nafsada way daciifi karta, mar walba aad daciiftid, soo xasuusa aayaddan ilaahay uu leeyahay, maskaxdaada ku dhaco oo ah wattaquu, ka baq, isku diyaari, ka faker, ha iloobin maalin aad hor istaagi doonto rabbiga ku abuurtay, rabbigaaga caza wajal. ilaahay waxaan weydiisanayaa aniga iyo idinka inuu xisaabta maalinta qiyaama noo fududeeyo, naga dhigo kuwa adduunkan naga dhiga kuwa adduunkan si fiican ugu shaqaysta, cibaadada ku dadaali wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay, si dhammaanteena janna aan ugu wada kulanno, si halkan aan ugu kulannay ilaahay subxaanahu watacaalana uuna sii jeclaado, noloshanna aan ku noolaano nolol farxad badan, sidata farxad laga farxo, laga dhoola cadeeyo, laga qoslo, laga dareemo qalbiga. allah idin xifdiyo, baarakum allahu fiikum. waa walaalkiina abubakar jeclaystay intaas inuu idinla wadaago, una sii sheergareeya, una sii qeybiya walaalaha kan si ay ugu faa'idaystaan, ajar ayaad ku helaysaa. aad iyo aad baa umahadsan tahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.